إلا يحري جعيل كيجا وحاني مجيجو والضوء البايان ومري لكن ويات كاتي qisadan waxay la soo wadaagtay gabar reer Norway waxay dhahday waxaan ka soo tagnay magaalada Muqdisho waxaan imaanay Itoobiya qaasatan caasimadeeda Addis Ababa sabab waxaan ku bartay wiil oo isagana markaa joogay oo reer Jigjiga ahaa wiilka markaan isbaranay oo iswareysanay waxaan u sheegay inaan Muqdisho ka imaaday leen Norway aan hadda xareeradno wiilka aad buu noo caawiyay aniga reerkayga way Addis Ababa noogu soo horeeyay isagana wuxuu ahaa reer Jigjiga wiilka caawimaada uu nacaawiyay aad baan anigu u jeclaaday wuxuu ahaa wiil naxariis badan jacaylkiisana uu ahaa mid banaanka yaala wuxuu ahaa wiil mar walba igu faana xiriirkaygana ku faana social media meel walba oo maarag qof sawirkiisa la dhigo uu soo dhigi jiray isagoo igu faanayo jacaylka uu qabo ma ahaan wiil dumar badan la hasaabo wuxuu ahaa wiil aan kalsooni badan ku qabay qofka daacadana mar walba ma qarsoomo 3 sano ayaan jacayl qurux badan farxad ku dheehan aan wada lahayn ugu dambeyntii aniga leenkii Norway ayaa anigii familkayga inoo soo baxay leenkii ayaa markii uu noo soo baxay waan u sheegay waxaan ku dhahay noloshaydii aad baan u faraxsanahay dhanna waan ka murugaysanahay waayo hamigeygii ama rajadeydii ama Itoobiya waxaan u imaanay waxay ahayd leenkeeni Norway alxamdulillah adiguna qayb weyn ayaad ka qaadatay oo nacaawisay anagoo luqad aqoonin anagoo magaalada aqoonin ayaa anigu familkayga nacaawisay ugu dambeyn waxaan noo soo baxay leenkii inaan baxo waan jeclahay laakiin waxaan dareemayaa Addis Ababa inaan ugu tagaayo qayb kamid ah jirkayga xaqiiq waxa ahayd wiilka wajigiisa inaan ka dareemay murugo aad u weyn markaan u sheegay inuu leenkii noo soo baxay wuxuu dhahay noloshaydii horta wax walba oo Ilaahay qoro ayaa dhaco anigu ma jeclaysanin inaad iga tagto haddana horumarkaaga iyo noloshaada qofka joojinayo meehi waxaan ka codsanayaa jacaylka aan ku qabo inuu noqonin mid beeldara waxaan aaminsanahay maanta inay jeceshahay inta badan dadka markay qurbaha tagaan way isbedelaan qaarkood waxay iloobaan qofkii jacaylku kala dhaxeeyay qaarkood waxay iloobaan familkoodii waxaan ka codsanayaa inaadan noqonin qof adduunyo qaado anagu asal ahaan waxaan nahay dad Afrikaana wadankaas aad joogtid waxaad ogaataa inuu ku yahay wadan martiya ha isdhihin maanta Norway aad tagtay Yurub ayaad ku nooshahay wiilka Afrika joogo maxuu ku tarayaa kuwa badan qurbaha tagay ayaa jacaylkoodii iyo noloshoodii iloobay laakiin ugu dambeyntii shalaayay waayo qof walba ugu dambeyn meeshii uu ku dhashay ama uu ku soo barbaaray ayuu ku soo noqonayaa waxaan ka codsanayaa jacaylkeena gablan ha ka dhigin yuusan noqonin jacaylkeena kubi hore loogu sheekeyn jiray oo qurbaha uu kala geeyay marna yuu noqonin jacaylkeena waxaan ku dhahay qof walba oo nool isaga iyo sida uu u noolaado iyo sida uu u dhaqmo ayay tahay anigu xaqiiq waxa ah inaan 3 shay iloobi doonin jacaylka adiga aan ku qabo inaan iloobi doonin naxariistaada iyo wanaagaaga inaan iloobi doonin aniga iyo familkayga caawimaadii Addis Ababa nagu caawisane inaan iloobi doonin waayo waxa tahay wiil naxariis Ilaahay siiyay daacadaaduna waa midaan anigu aan ku faano in wiil daacada aniga wiilkan xiriirka la leeyahay uu yahay waayo adigu waxa tahay social media meel walba aad isticmaasho waxaad soo saaratay sawiradayda waad igu faantaa ninka ragana waxa ugu qiimaha badan ninka ku faana gabadha uu jecel yahay waan ku aaminsanahay adiguna Ilaahay waxaad iga soo baridaa inaana gabdhihii Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed ee qurbaha markay ay tageen isbedelay inaana noqonin in jacaylkayga in noloshayda ay noqoto mid aan isbedelin waa xaqiiq in Yurub horumar ka raadino laakiin xaqiiq maaha noloshii aan ku haysanay Afrika dadkii wanaagsanaa inaanan iloobin iisoo duceey waxaan mar walba Ilaahay ka baryayaa anagoo wada jira in aan wada noolaano Ilaahay awlaadna na siiyo waan kugu faraxsanahay waana ku farxi doonaa soo noqoshadayda iyo wada jirkeena labadayna waxa uu dhahay noloshaydii anigtii Addis Ababa intaan ma joogi jirin 3 bilood 4 bilood haddaan joogo waxaan u noqon jiray Jigjigo laakiin markaan adigu ku bartay Jigjigo kuma noqonin Addis Ababa ayaan joogay haddii aad baxdo anigu waan bixi doonaa waxaan aadi doonaa Jigjigo Addis Ababa iftiinkiisa adiga ahayd anigu ma awoodo inaan ku sii noolaado noloshaydii waan noqonayaa aniguna waxaan tagi doonaa Jigjigo sidaas ayaan ku wada balannay in qof walba dhankiisa uu ka ilaaliyo jacaylka muddo yar kadib waxaan noo dhamaaday processkii reportka ayuu igeeyay si qurux badan ayuu ii sagootiyay waa dareemaysaa laba qof oo isjecel 3 sano
hal maalin aanan murmin, habeen walba maalin walba isaag taagan ayaa maanta kala fogaanayo. ilintayda timaahan midaan awoodo inaan celiyo. walaalahay iyo familkayga way garab taagnaayeen, way sabarsiinayeen, waxay dhahayeen hadduu jacaylkiinu mid dhab yahay, hadduu ilaahay niskii qoray, waad is helaysaan waana guulaysanaysaan sabar. ugu dambayn waxaan tagay Norway. noloshii Norway ayaan la qabsaday. ma ahayn qof iloowa jacaylkii, ma ahayn qof iloowa balankii. nolol walbo iyo farxad walbo aan Norway ku helay waxaa iga qiimaha badnaa wiilka Afrika aan ku jeclaaday. mar walba waxaan isku dayaayay jacaylkayga inuu ahaado mid nool oo jiro. waxay waqtiga u socdo, xiriirkeena iyo farxaddeena u socdo. 3 sano Addis Ababa aan isla joognay, 3 sano aan Norway joogay oo sharcigayga aan helay, qof shaqeeyo aan noqday. waxaan go'aansaday inaan jacaylkaygii aan ka soo tagay aan dib ugu noqdo. waan wacay, waxaan ku dhahay noloshaydii, waxaan rabaa wejigaagii, waxaan rabaa noloshaadii. intaan ka badan xiriirkeena inuu sii socdo ma jecli. 6 sano ayaan xiriir u leenahay. 3 sano aan Addis Ababa isla joognay iyo 3 sano aan Norway joogay, aan telefoon ka wada hadlaynay. waxaan rabaa inaan soo baxo. wuu aamini waayey, wuxuu dhahay noloshaydii waxaan rabaa inaad telefoonka call video furato, anigoo ku arkayaan rabaa inaad ii sheegto. waan aamini lahay noloshaydii. waayahan ku dhahay call video ayaan ku sheekaysanay. waxaan ku dhahay waan kuu xiisay, waxaan rabaa sanado badan haddii uu jacaylkeena jiray inaan Addis Ababa imaado. waxaan rabaa Addis Ababa inaan kaga soo noqdo adigoo ninkayga, anigoo xaaskaaga ah ayaan rabaa tokadan inaan soo noqdo. wuu ilmeeyey. habeenkii aniga aan soo baxayay, haddii aan anigu ilmeynayay, imaashihii aan u sheegay ayuu la ilmeeyey. wuxuu dhahay waxaa tahay boqorad, waxaa tahay qof jacaylka yaqaana micnihiisa iyo balanka. waxaan ku dhahay jigjiga ka soo tag, aan isugu imaanaa Addis Ababa, halkaa aqalgalkeena ha ka dhaco si aan adiguna barsayskaaga kugu xareeyo noloshaydii. ilaahay wuxuu suurageliyey anagoo caafimaad qabno, Addis Ababadii mudugta aan ugu soo kala tagnay, anagoo faraxsan inaan dib ugu noqdo. aniga iyo jacaylkayga inaan halkaa ku midownay. aroos qurux badan, farxad wato, ma dhiganin aroos weyn, waayo labadeena waxaa noo muuqday jacaylka aan isku qabno. wax micnaha nooma suubinayn inaan aroos weyn hotel ku dhiganno. waxaan dhigannay aroos yar oo aad u qurux badan oo farxaddiisa anagu aan dareemaynay. 2 bilood oo jacayl iyo farxada anagoo lamaanaa isqabno ayaan halkaa ku soo qaadannay. anigoo Addis Ababa jooga xogaa waan xanuunsaday. isbitaal ayaan si wada jira u tagnay. waxay noo sheegeen dhaqaatiirta inaan uur leeyahay. aad baan u faraxnay labadeena. farxad midii ugu quruxda badnayd, waayo geedkii aan abuurnay mirihiisii ayaa ilaahayna siiyey. 2 bilood kadib anigoo uur leh ayaan ka soo tagay Addis Ababa. Norway ayaan imid. anigoo faraxsan ayaan waxaan ka soo tagay Addis Ababa, anigoo dhahay noloshaydii inaan ku dacwoodo aad bay noogu fududahay, waayo waxaan leeyahay uur. waxaan rajaynayaa ilaahay idinkii in si fudud aan dib ugu midoobi doono Norway. waan soo baxay, waxaan imid Norway. waxaan bilaabay dacwadii. nasiib daro waxa uu ku noqday jigjigo. waxaa lagu xiray anigoo 3 bilood uur leh ayaa jigjiga lagu xiray. anigoo uur leh ayaa murug isoo wajahday. waxaan isku dayay waddo walbo aan jacaylkayga ku soo badbaadin karo. qof walbo ayaan la xiriiray. anigoo 5 bilood uur leh ayaan Norway ka soo noqday. safaaradda waxaan u sheegay in la iga xiray jacaylkayga. waxaan imid jigjigo. waddo walba ayaan u maray, laakiin way adkaatay. lacag badan ayaan ku bixiyey inaan jacaylkayga jeelka ka soo saaro.